Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Khayrta kusoo dhawaada janaalka Caaqil Taj. Muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan isla dhisno marka website-ka aad u jeedaan anagoo isticmaali doona marka wax loo yaqaano Bootstrap. Website-kan marka waxyaabaha uu leeyahay waxaa kamid ah section walba marka wixii ku saabsanaya haddii la gaaro active ayuu noqonayaa marka nav bottom-ka sidaad ka arki kartaan halkan. Haddii halkan taabto marka home-ka ayuu geenayaa. Haddii about-ka taabto about-ku tagayaa marka any section walba wuxuu ku saabsan yahay marka haddii bottom-ka aad taabto wuu ku geynayaa marka. Taasna waan ku arki doonaa sida loo sameeyo adigoo isticmaali doona Bootstrap. Wuxuu kaloo leeyahay marka responsive waaye oo waa mid aad ku isticmaali kartid xataa device-yada yaryar. Mobileska oo kale wuxuu u muuqanayaa marka sidaan oo kale. Mobileska marka naafka sidaan ayuu u ekaanayaa. About-ki waaye. Halkan waa meeshii kale. Aan u guda galno marka saan u bilowno marka waxaa u baahanaa Bootstrap-ki inaan soo download gareysano ama as online ahaan inaan u isticmaalno. Waxaad taabataa marka documentiska markaad taabatid kadib halkan imaaw as online ahaan ayaan u isticmaalaynaa marka annagana soo kobiyeyso marka codekaas. Okay. Halkan waa meesha aan ku qori rabo marka codeka. Waad aragtaan imageska aan project-kan ku qaban rabo ayaa halkan igu jiro marka. Okay. HTML-kaaga tag marka ku paste garee. Open with live server dheh marka saan u aragno. Waad aragtaan website-keena waa live. Wareen waxaa soo bilaabaynaa marka inaan ku bilaawno marka navigation-ki navbar-ka ayaan ka bilaabayaa. Waxaad tagtaa marka Bootstrap-ka documentiska adoo joogo waxaad sameyn kartaa marka si aad u heshid sheyga aad raadinaysid component-ka aad raadinaysid inaad search gareysid ama inaad inta ka raadsid. Ugu horreyn waxaad tagtaa marka aad deertaan components-ka tag. Component-ga markaad tagtid navbar-ka ka dooro. Waxaad raadsataa marka style-kii uu ku anfici lahaa adiga ama kuugu habboonay. Okay, aniga qaadanaya marka code-kaaga u laabo marka. Okay. Waad aragtaan hadda waxaa inoo samaysan marka navigation-ki ama navbar-ki. Waxaan sameynaynaa marka inaan customize gareyno oo keena aan u ekeysiino. Okay. Marka ugu horreeya horta waxaad ka bedeshaa title-ka. Waxaan ku bedelayaa marka writer space. Hadda waxaan bedelay marka title-ka. Waxaad tagtaa halkan waxaan ka dhigayaa meeshan bg oo light yahay bg white. Waxaan kaloo rabaa inaan u sameeyo marka waxyar balac waxyar dhir aan dhehe y access-ka waxaad tiraahdaa 3 container ka dhig marka meeshan oo fluid-ka ka bixi kaloo sameysaa image-kii oo loogada soo gasho kadib. Okay, halkan waxaad tiraahdaa marka logo so space-ka weynaada marka kan iska xir. Waxaad tiraahdaa marka style waxaan rabaa marka waxyar inaan size-ka loogada wax ka taabto. Waxaad tiraahdaa width-kiisa waa 150 pixel. Halkaas waxaan ugu soo tagay marka loogaday waxaad imaadaa menu-ga. Halkan waa home-ki inta waxaad ka dhigtaa marka about. Okay, inta waxaad ku bedeshaa blog. Halkan kale waxaad ku bedeshaa contact. Okay, disable-ka ka qaad marka. Waxaad kaloo u sameysaa markii aad inta joogtid waxaad dhahdaa ending-ga ku dhago start auto. Waxaan kaloo ku daraynaa marka button-kii oo sign up-ka ahay. Waxaad tiraahdaa ul navbar nav. Okay, li nav item. Kadib waxaa leeyahay btn hash-iska action-kiisa. Waxaa leeyahay marka sign. Halkan waxaa ka dhigtaa btn dag. Waxaan rabaa inaan weyne waxyar. Waxaad ka dhigtaa 3. Waxaa leeyahay oo kale text capitalize. Okay, waan fiirinaynaa marka waxa inoo samaysan. Inoo samaysan marka bottom-ki iyo ka kale navigation bottom-iska kale iyo loogadii. btn-ka waxaad tiraahdaa marka inuu ahaado marka btn-kan rounded-ka ka bixi horto 0 ka dhig rounded 0. Halkan ziyaado oo 4g and then meeshan kale waxaad tiraahdaa okay ul-kan waxaad tiraahdaa marka margin start inuu ahaado marka LG-ga markii la joogo large screen-ka 4 inuu ka sigto.
okay waad aragtaan marka hoverka wuu leeyahay waxaa kaloo dhiman inaan u sameyno marka shadow yar naafka imaam marka tirada shadow fiir marka okay waxaan u gudbaynaa marka hero sectionka inaan sameyno dhimada marka halkan waxaan sameynaynaa marka deertan hero sectionkii waxaad sameysaa comment waxaad ku qortaa hero section okay section waxaad tirahdaa section wuxuu leeyahay id hero waxaad u sameysaa containerkaas oo leh marka row wuxuu leeyahay marka gutter 3 ah column of wuxuu leeyahay marka 12 large screenkana wuxuu leeyahay 4 wuxuu kaloo leeyahay marka h1 oo titleka ah titleka marka waxaan ku qoraynaa qoraalkan okay waxaan kaloo u sameynayaa marka description okay waxaan kaloo rabaa inaan u sameeyo marka btn-ki ama button-ki btn iska dhe meeshaan leedaha marka start writing meeshaan imaa marka waa btn dag wuxuu kaloo ii leeyahay roundedka waa 0 waxaa kaloo leeyahay marka text abar ka dhig waxaan kaloo u sameynayaa marka padding x axis-ka inuu ahaado 5 padding y axis-kana uu ahaado 3 okay intaas ayaan fiirinaynaa marka okay waan aragnaa marka qoraalkii aan soo gelinay ulaa marka koodkaaga sameynaynaa marka columnkii kale oo aan soo gelin lahayn marka imageka waa column 12 ah waa column large screenkiisa uu yahay marka 8 ayaa leedahay waxaan isticmaalay 4 okay ha isbuuxiyaan macnaha 12 isku dhamaystiraya waxaan u baahanaa marka image tag marka imageka ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa marka hero waxaa dhahdaa marka order first waxaa kaloo tirahdaa order lg first okay waad aragtaan marka imageka waa soo gashanay waxaan kaloo u baahnaa marka si aan u ekeeno marka midkaan oo kale inaan isticmaalno marka style ama css okay waxaad soo furtaa marka stylekaaga ama css-kaaga okay halkan waxaa inoogu sameysan marka fontiga aan soo import gareynay waxaan ka keenay google fonti waxaan kaloo inoo sameysan marka wax loo yaqaano root kaasoo igu jiro marka variable aan meesha ku diyaarsaday oo ii hayaan marka values halkan waxaa igu sameysan marka marginkii iyo paddingkii defaultiga ahaa inaan ka bixiyo waxaa kaloo ii sameysan marka badigii oo font family-ga aan sheegay image walba oo lasoo geliyay marka 100% ka dhig widthkiisa rabaa marka fontigan marka inaan wax ka bedelo size-yadan inaan wax ka bedelo ayaan rabaa marka waxaad tirahdaa marka media only screen and waxaad tirahdaa marka min widthkiisa ahda marka 992 markuu noqdo shaashada markii cabirkeedu uu ka weyn yahay 992 aanan soo dhaafin 992 font size-yada ama valueska rootka ku jiro ha ahaadaan qiimahan aan siinaynaa qiimahan hadda soo socda 3.5 rim h1ka h2 waxaad tirahdaa 2.5 kan waxaad tirahdaa 1 rim kan waxaa leeyahay 75 pixel rootka valueskan wuxuu isticmaali doonaa marka screenka ka weyn yahay 992 hadduu screenka kasoo yaraado marka 992 wuxuu isticmaalayaa qaybtan halkan imaa marka waxaa leeyahay waxaa jiro section walba waxaa u baahanaya inuu ii lahaado marka padding oo kor iyo hoos 100 pixel ah labada gees oo kala ah marka left iyo right-ka oo 0 pixelka ah waxaan kaloo u baahanahay wax loo yaqaano title waa class aan iska sii diyaarsanayo titlada aan ugu talagalay marka inuu qaato stylekiisa font widthkiisa waa 700 waxaan kaloo u baahanaa font size-ki waxaa igaaga dhigtaa leeyahay juwankii value-ga oo haya waxaan u baahanaa marka text transform capitalize
waxaan kaloo u baahanaa marka margin bottom inuu ahaado marka 1.5 rim ani title walba inuu class lahaado marka stylekan okay waxaan u bixinayaa marka class kale aan u baahanahay subtitle waxaan u baahanaa asagana font weight oo gaaraya marka 600 waxaan kaloo u baahanahay inuu ii lahaado marka font size value geli marka h2 size waxaan kaloo u baahanahay inuu lahaado text transform capital okay waxaan kaloo u baahanahay margin bottom asagana sidoo kale 1.5 rim halkan waxay i raacsiisaa marka line height oo gaaraya marka qiimihii line heightka okay intaas waaye waxaad ii samaysaa class kale oo aan rabo inaan u isticmaalo flexboxka waxaa ii leedahay marka flex okay display flex justify content start align item center asagana intaas ayaan u baahan waxaan kaloo u baahanahay ani paragraph walba inuu lahaado marka font sizekan waan dhameeyey waxaad samaysaa marka inaad soo import garaysid marka css-kaaga okay waan soo import gareey kadib waxaad samaysaa marka halkan imaaw h1ka waxaad tirahdaa marka class loo yaqaano title waa titlekii waxaad samaysaa meeshan kale def flex okay oo waad aragtaan marka soo noqday waxaan qaladnay marka h1ka ka bilaab ilaa iyo anchor tagga ama bottomka waxaad dhexgelisaa marka container loo yaqaano hero data okay waad aragtaan marka hadeertaan uu saxan yahay hero saas ayaan ugu baxay waxaan aadaynaa marka okay waxaan dareemayaa markuu scrollka sameeyo fiiri navigationka wuu qarsamayaa ama navbarka waxaan soo jeegareynayaa marka classka aan hadaaya meesha ka wacay si qaldan miyaan u wacay mise wuu saxan yahay okay maba wacinba hadaaya mujido haddaan leeyahay marka fixed top hadda waxaan rajeynayaa marka inuu kor ku dhignaado okay waad aragtaan haddan dhaqaaq ma lahan waxaan u gudbayaa marka qaybta lamaad ee about-ka ahay waxaad tagtaa sectionka hoostiisa comment u samee okay and then waxaad samaysaa section id uu leeyahay oo loo yaqaan about container ayuu leeyahay containerkaas waxaa ku jiro rowgaas wuxuu leeyahay marka gutter of tree okay columnkiisa wuxuu yahay marka 12 wuxuu leeyahay marka column kale oo dhahaya marka large screen-ka ah kaasuu gaaraya marka asagani 7 midka kale laakiin 7 ma noqonayo asaga wuxuu noqonayaa waxaad ka dhigtaa inta dhiman waa 5 plus 7 12 column okay image soo import garee marka oo sectionkaas loogu talagalay image leh waxa waaye marka about okay waan fiirinaynaa marka okay waad aragtaan imageki lamaad waa soo geliyey waxaan samaynayaa marka inaan geliyo marka qoraalka ugu horeeya waa h2 wuxuu leeyahay marka class loo yaqaano subtitle waxaad dhexgelisaa marka qoraalkan waxaa jira marka title oo h1 ah waxaad gelisaa qoraalkan okay waxaad samaysaa oo kale description oo paragraph-ka ah waxaad gelisaa marka qoraalkan okay markaad paragraph marka aad dhex gelisid okay asagana waxaan ka iloobay inaan u sameeyo hal container oo waxaan dhan ii qaada waxaad tiraahdaa about data ii dhexgeli marka asaga iska dhigtaa marka def flex centerka inuu taga ayaan rabaa okay soo fiir markaad dirtaan
waxaan arkaa inaysan isku mid ahayn marka qaybtan oo letter spaceka iyo colorka ay ku kala duwan yihiin. isagana waxaan aadaynaa CSS-ka ayaan kasoo xalinaynaa marka. inta kale waa isku mid. waxaad tagtaa marka CSS-kaaga, waxaad ka tagtaa subtitle, waxaad ku dartaa marka letter space wax loo yaqaano 8 pixel. colorka waxaa ka dhigtaa mid black ah, laakiin RGB ayaan u baahanahay. meesha marka RGB ka dhig, intana waxaa ka dhigtaa 0.6. okay, waan fiirinaynaa marka. okay, waad aragtaan marka subtitle-keena wuxuu u egyahay marka subtitle-ka kale. waxaan aadaynaa marka sectionka ku xigo oo noqonaya marka sectionkan waa blogi, and then waxaa ku xijinaynaa marka sectionka kale oo publishka. ugu horreynkan wuxuu u baahan yahay marka waxaad tagtaa marka koodhkaaga, labada section marka blogi iyo labadooda waxaan rabaa marka inaan hal mid aan ka dhigo oo hal navigation ay lahaadaan. tusaale ahaan markaad inta joogtid oo kale bloga aad joogtid, haddii aan scroll ku wado oo aan sectionka kale aan u gudbo xataa weli waxaa lagu jiraa blog ayaa active ah. marka labadan section waxay isu tagayaan bloga. si aan u hoosgeyno marka waxaan sameynayaa marka hal shay oo ka dhexey kara waa main ayaan leeyahay, id ayaan u baahanahay, id-gu waa blog. waxaan kaloo u baahanahay inaan sameeyo sectionka ugu horeeya waa section wuxuu leeyahay history, wuxuu leeyahay marka container, wuxuu leeyahay row kaasoo ah marka gather of 3, wuxuu kaloo leeyahay column 12 ah, wuxuu kaloo leeyahay column oo 4 lg4 ah, large screen-ka ka wada macnaha 4 ah. intaas ku fasax. wuxuu kaloo leeyahay marka halkaan imaam marka waxaad ka dhigtaa meeshaan 7 ayaan rabaa, meeshaan waxaad ka dhigtaa 5. marka meesha 7ka horta ugu horreyn waxaad soo import garaysaa image-ka. waxaan marayaa marka image-ka saddexaad. okay, meeshaan waxaad tiraahdaa marka story. waxaan rabaa marka qoraalka inaan soo geliyo. ugu horreyn waxaad tiraahdaa story data. okay, waxay noqonaysaa marka wuxuu leeyahay h2 oo leh marka classkii subtitle-ka. waxaad ku qortaa marka qoraalkan. wuxuu kaloo leeyahay marka h1 oo title-ka ah, class title-ka wac marka waxaad ku qortaa marka qoraalkan. okay, wuxuu kaloo leeyahay marka description-kii, wuxuu leeyahay marka qoraalkan asagana. okay, waxaan ku sameynaa marka wixii content-ii lahaa waan soo gelinay marka qaybta history-ga. waxaan fiirinaynaa marka qaabka u muuqdo marka. okay, midkeena inagee waa kana marka waxaan sameynaynaa marka qaybta daatada inaan center ka dhigno. waxaad imaadaa marka halkan aan wacaynaa marka flex box-ka aan sameysane. okay, saas ayuu ku yahay marka mid center ah. waad aragtaan. waxaan u gudbaynaa marka qaybtii publishka, mainka dhexdiisa ku jiro marka section kaasoo id-giisa yahay publish. okay, wuxuu leeyahay marka container kaasoo leh marka row of g3 gather 3 aan ka wadaa. wuxuu kaloo leeyahay column kaasoo gaaraya marka 12 marka ugu horeyso. column large screen-ka wuxuu yahay marka asagane waa 7. wuxuu kaloo leeyahay image. okay, publish. waxaan sameynaynaa marka order kiisu waa first markii caadiga u yahay order large screen-ka laakiin wuxuu yahay order large screen-ka first kana wuxuu yahay marka last. wuxuu kaloo leeyahay marka column kale oo ah 12
column LG-giisna wuxuu noqonayaa marka waa 5. wuxuu leeyahay marka subtitle oo H2 ah. waxaad ku qortaa marka qoraalkan. wuxuu kaloo leeyahay marka title oo H1 ah. waxaad ku qortaa marka calaaski title-ka ah qoraalkan sii marka. wuxuu kaloo leeyahay marka qayb description-ka ah, asagana waxaa siisaa qoraalkan. okay waan sii marka waxyaabaha oo lahay waan fiirin doonaa marka qaabka u muuqdo. okay qaybta publishka waa kana. waxaan ka dhigayaa marka center mid ah. marka maanta oo dhan waxaan iloobayaa marka kuwan inaan ku xiro container. marka ha iloobin adigana inaad container aad dhexgelisid. waxaan joogaa publish data container. qaybta ka sareysa marka waxaa sameysaa defty. waa center adeerta marka. qaybta publishkana waa kana. qaybtii kalena waa kan. aboutku waa kan. waxaa inuu harsan marka qaybta ugu dambeysa ee ahay contact iyo active bottomska inaan sameyno iyo footerka inaan sameyno. marka contactiga ugu horeyn marka waxaan ka bilaabeynaa qaybtiisa ugu horeyso. halkan marka imaadid waxaan u sameynayaa marka qaybtan comment. waxaan leeyahay waa section kaasoo ID-giisu yahay contact. waxaan kaloo siinayaa marka wuxuu leeyahay container. wuxuu leeyahay row. wuxuu leeyahay contact data. waxaa ku jirto H3 ah. waxaad ku qortaa qoraalkan. waxaan rabaa markaas some classes inaan waco oo bootstrap ah. waxaan leeyahay horta textiga waxaad ka dhigtaa ugu horeyn mid wide ah. textiga waxaad ka dhigtaa andale center. font weight waxaad ka dhigtaa bold. margin bottom oo 4 samee. kaas waa qaybta kore. waxaad sameysaa marka paragraph. paragraphkan waxaa ku qorayaa marka paragraphkan waxaa ku qoray sida tan. waxaan u baahanaa marka sectionkan colorkiisa inaan bedelo. waxaan tegayaa marka CSS-kayga. waxaad wacdaa marka ID-ga loo yaqaane contact. ID-gaas waxaad tiraahdaa marka background colorkiisa ka dhig colorkan. waxa inoo sameysan ayaa soo fiirinayaa marka. waxaa inoo sameysan marka titlekan. kan kalena meeshan ayuu ku jiraa laakiin waa colorkiisa ayaanan bedelin. colorka ka bedel marka. waxaad tiraahdaa textigiisu waa textigan dal wuxuu yahay text center. waad aragtaan marka positionka meesha la raba ayuu imaaday. waxaan ku xijinayaa marka inaan sameeyo marka input fieldigan. si aan u sameeyo marka waxaad tagtaa bootstrapka. waxaad tagtaa marka meesha ay ku qoran tahay formska input group. waxaan rabaa marka bottomkan koodkaaga tag marka. waxaad ka dhex baxdaa marka contact data. waxaad sameysataa marka rowgaas oo leh marka column kaas oo leh marka 12 iyo waxaad kaloo samaystaa column kale oo ah LG6. waxaad samaystaa oo kale form
actionkiisa hash iska dheh wax ma diraayo. Okay, waxaad ku basti garaysaa marka qoraalka aawade componentka aawada adheh. waxaad u laabataa markaad dirtaan qaybtan waxaad tiraahdaa offset of 3 laakiin markii shaashada weyn la joogo offset of 3 bax inta kalena waa 12. waan fiirinaynaa marka soo muuqdo. Okay, waad ujeedaa marka saan ayuu muuqda. waxaan ku darayaa marka some style input groupka imaa marka margin button ma u baahni iska bixi kaas. waxaad tirahdaa padding of 2 rounded 1 bg white. waan isla fiirinaynaa marka. Okay, waad aragtaan marka soo u muuqdaa dirtaan. waxaan ku sii darayaa marka qaar kale inta imaa bg ama padding 2 dhe asagana fiiri marka. waxaan rabaa markaad dirtaan inaan ka bixiyo borderkan iyo shadowga inputka bottomkana aan wax ka bedelo. Okay, inputka ayaan ku hormarayaa marka. waxaad tagtaa css-kaaga waxaad tirahdaa inputka form controlka waxaa ka dhigtaa borderkiisa mid nan ah. markii focuska la saarana waxaad ka bixisaa asagane box shadow nan. waxaan fiirinaynaa marka. waad ujeedaan waan ka bixiyey. waxaa inoo harsan marka bottomka iyo decorationkiisa. halkan imaaw waxaad tirahdaa id-gan qaada marka. waxaad dhahdaa marka id-gan ugu horeen background color samee kaasoo ah marka colorkan. waxaan kaloo siinayaa marka border radius oo gaaraya marka 4 pixel. waxaan kaloo siinayaa marka color oo ah marka halkan. waxaan leeyahay marka text transform uppercase. waxaan kaloo siinayaa border inuu yahay nan. Okay, fiiri marka. Okay, waad aragtaan. waxaan ka bedelayaa marka qoraalkiisa. waxaad ku qortaa halkan subscribe maadaama subscribe qorayo marka channelkan aan ka iloobin inaad adigana subscribe saartay. Okay, subscribe buu yahay. waxaan kaloo ku darayaa oo aan ka iloobay waa qaybtan iga bixi ma u baahni. waxaad tirahdaa btn lg. qaybtii contactiga marka saas ayaan ugu baxay. waxaan u gudbayaa marka qaybtii kale ugu dambeysay oo ahayd footerka. footerka ayaan sameynaynaa haddana waa looga iyo bottomskan inaan soo gelino. Okay, halkan imaaw waa footerkii. waxaad sameysaa section id of footer wata. ugu horeen maxaa ka bilowdaa container. waxaa leedahay row kaasoo leh marka gasor oo gaaraya 3. waxaan u baahanahay column oo ah asagana 12 laakiin markii shaashada oo habeen la joogo ha ahaado asagana lg 4. u baahanahay dhexdiisa inaan sameeyo div loo yaqaano logo. waxaa ku jiro marka imageka logada. waxaad ku qotaa internet logo. waxaan rabaa inaan u sameeyo style widthkiisu waa 200 pixel. waxaan rabaa oo kale another column kale column kaasoo leh marka 12. large screenkan wuxuu leeyahay 8. waxaa ku jiro marka hash iska dheh waa homekii class ayuu leeyahay marka
عليها وران تكستي capitalize iska dheh text decoration none. Okay, waan fiirinayaa marka okay waad aragtaan logadan waa kan bottomka kalena waa kan. Okay, color ayaan siinayaa marka waxaad tirahdaa marka text drag you see waxaan sameynayaa marka kanoo kale kan waa marka aboutki waxaad tirahdaa about contact. Okay, hadda fiiri marka waad aragtaan hoosta ayay iskaaga jiraan. waxaan ku dareynaa marka stylekii ugu horeyn waxaad tirahdaa display flex waxaad tirahdaa marka flex lg row waxaad tirahdaa flex column justify content end align center waxaad tirahdaa gap of 3 and 4. okay waad aragtaan waxaa inoo harsan marka inaan sameyno markaa dirtaan bottomskan inaan ka dhigno marka kuwa active ah markoonan active ka ahayn inaan active ka aan ka qadno halkan imaa. okay bootstrap markaad timaadid componentiga tag waxaad ka tagtaa halkan ay ku qoran tahay marka scroll spy. waxaad tagtaa marka meelahan oo kale waxaad soo kubiyestaa marka koodhkan waxaad tagtaa marka adigana qaybta sare ee koodhkaaga baadhiga. okay waa kana waxaan dhex dhigayaa marka halkan. okay waxyaabaha qaar ayaan iska bixinayaa. waxaa kaloo sameysaa classkan inaad halkagaas gelisid classka navbar ka soo qaada marka. okay meesh ma ahan marka aniga class ayaan isticmaalaya dhibac c. okay halkan imaa marka meesha ugu dambeyso waxaad tirahdaa active waxaa siisaa marka colorkan leeyahay color oo ah important waxaad imaadaa marka halkan hash markuu ku yiraahdo kale leeda hero saan u hubsado marka isku soo gagaabi hero o ayaa ka maqan. okay midkan kala soo gaaba asagane aboutki waa blog bida iska yaree waa contacti intaas ayaa u baahnaa marka idiyadooda inti imaa hero meeshan kale waxaa loo yaqaanaa about meeshan kale waxaa loo yaqaanaa blog meeshan ugu dambeysana waa contactigi hijrafka ayaa ka maqan hash dheh waa contact. waxaad tagtaa marka pagekaaga waad ujeedaan hadda waxaan joognaa homeki active waaye waxaan joognaa aboutki waxaan joognaa blogi waxaan joognaa qaybta ugu dambeyso ah contactiga. intaas ayaan ku dhameyna marka muuqaalkii aan ku dhisayna pagekani also haddii aan sii barooweeno inuu yahay responsive iyo in kale inspectorkaaga furo daataa marka halkan waa 12ki waad ujeedaan sidan ayuu soo muuqanayaa. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa marka muuqaalkayga maanta. haddii aad wax ka faa'iiday marka sii sheer gareeyo asxaabtaada kale oo codinka jecel la wadaag.